soo dhawaada asxaabey, filimkeenani waa filim Soomaaliya laguna magacaabo Antisocial. waxa uu ku bilaabmayaa Maas oo ah ardayad dhigata kulliyadda caafimaadka, waxayna ku sii wajahan tahay jaamacadda. laakiin inta aanay gelin fasalka, waxa ay video call kula hadashay saaxiibkeed Dani. waxa uu ahaa mid aan danaynayn. waxa uu ku yidhi aan nasasho qaadano, isaga oo ku jaray koolka. waxaanay Maas u soo kacday dhankaas iyo galaaska. tiktoorkii xiisadda ku jirayna waxa uu ardayda tusayay sawirro meydad dhintay, isagoo ka doonaya inay xalliyaan oo ay ogaadaan goorta ay dhinteen dadkani. laakiin Maas waa ay u dulqaadan weyday, iyada oo iskaga soo baxday galaaska. waxaana soo garaacay Mark oo ah saaxiibkeed, isaga oo u sheegay inay guriga ku qabanayaan xafladda sanadka cusub, iyana ay ka soo qayb gasho. waxayna ugu jawaabtay Maas, waan isku dayaya. si kadis ayay u aragtay mid ka mid ah ardaydii oo uu jirkiisu isbedelay, si taalamida indhihiisuna ay dhiigayaan. laakiin wax danayn ah may siinin. isla habeenkii waxa ay aaday Maas xafladdii Mark. qofkan waxa lagu magacaabaa Mark, kanna Steve, tanna Kitty. labadana waxa lagu kala magacaabaa Jimmy iyo Carl. waxaanu Carl ku odhanayaa, waxaan hayaa tigidh xaflad weyn oo lagu qabanayo magaalada. haddaad jeceshihiinna waynu tegaynaa. laakiin dhammaantood waa ay ku gacan saydhayaan. Carlna wuu iskaga tegayaa, iyaguna xafladoodii ayay iska sii wadanayaan. marka ay xafladda dhammaystirtaan, waxa uu Jimmy TV-ga ka arkayaa in uu magaalada ka dilaacay fayras khatar badan, kaas oo ku faafaya guud ahaan magaalada. waxa uuna dadka u bedelayaa zombie. dhanka kale, waxay Mark iyo Maas arkayaan warka, iyadoo ogaanaysa ardaygii ay arkaysa inuu fayrasku ku dhacay uuna dhintay. sidoo kale waxa magaalada la saaray bandow, waxayna maqlayaan sanqadh. waxayna isku dayayaan inay soo eegaan, laakiin zombie ayaa qabsaday Maas, waxaana ka badbaadiyay Mark. dhanka kale, Steve iyo Kitty waxa soo weeraray zombie, laakiin Steve ayaa u dhammaystiray. waxayna saaxiibadii maqlayaan sanqadha, iyagoo dhankooda u soo yaacaya. waxaanu Mark isku dayayaa inuu dejiyo saaxiibkii, isagoo ku odhanaya, qofka aad dishay waa zombie, waxaana qasab ah inaynu guriga joogno. waxaanay u soo degayaan hoos, waxaanay maqlayaan sanqadh, iyagoo arkaya zombie isku dayaya inuu soo jabiyo daaqadda. waxayna go'aansanayaan inay albaabada iyo daaqadaha iska adkeeyaan, iyagoo qalabkii guriga ku tiirinaya. waxaana albaabka ku soo garaacay saaxiibkoodii Carl, isaga oo ka codsanaya inay gudaha soo geliyaan. laakiin markii ay daloolka albaabka ka eegeen, waxay arkeen in calaamadihii fayrasku ka soo muuqdeen wejigiisa, wayna ka diidayaan arrinkaas. dhanka kale, waxa soo muuqday Steve oo jooga xamaamka, isaga oo isku arkaya calaamadihii xanuunka. waxaanay Maas u sheegaysaa inay dareemayso warwar fara badan. waxaanay sawiratay iyadoo joogta meel kale, afkeedana ay wax ka soo baxayaan. waxaanay saaxiibadeed isku dayeen inay dejiyaan, laakiin waxay ka doorbiday inay keligeed noqoto. si taalamida, Steve ayaa u sheegay inuu ku dhacay fayrasku, waajibna ay tahay inuu halkan iskaga tago. laakiin intaanay saaxiibadii u jawaabin, ayuu sawirtay dad badan oo la hadlaya, isagoo isku bedelay zombie, weerarayana Mark. laakiin waa ay dilayaan, iyaga oo geynaya qolkiisa. xagga kale, waxaa la arkayaa Kitty iyo Maas oo wada fadhiya, waxaana Kitty ka soo muuqanaya calaamadihii fayraska. waxaana u imaanaya Jimmy iyo Mark, iyagoo u sheegaya inaanay halkan joogi karin. laakiin Kitty waa ay ka diidaysaa,
iyada oo odhanaysa wax fayras ah ma qabo ee waxa ifeedhe maas igana keentay dhiigan. cidina kamay rumaysan ee waxa ay go'aansadeen inay xidhxidhaan, laakiin markii ay qaadeen ayaa ay isbedeshay. waxaanay isku dayday inay soo weerarto, laakiin waxa ay ka soo dhacday jaranjartii waxaana daldalay xadhiggii lagu xidhxidhay, wayna ay dhimatay. waxaanay u qaadeen dhankaas iyo qolkeedii. sidoo kale waxa uu isku arkay Mark inay wax ka sii yihiin, waxaana uu bilaabay inuu furo laabtoonkiisa isaga oo galaya Facebooka, kuna arkaya fiidyow ay ku qoran tahay qofka eega fiidyowgan waxa ka soo muuqanaya waxa hadda ka hor muuqda. waxaanay maas ku tijaabinaysaa gacanteeda iyadoo tusaysa indhaha Mark, laakiin gacantu waa ay ka soo muuqanaysaa, waxaanay dareemaysaa cabsi. laabtoonkana si dhaqso ayay iskugu laabayaan, waxaanay u tegayaan Jimmy, laakiin Jimmy waxa uu sitaa mindi, waxaana u diidayaa inay u soo dhawaadaan isagoo ku odhanaya iyaga fiidyowgan. waxaanay daawanayaan qof ka sheekaynaya fiidyowgii ay soo arkeen lehna waxa uu fiidyowgani qofka maskaxdiisa ku beerayaa cayayaan yar, kaas oo awood u leh inuu maamulo qofka kuna sababa inuu noqdo zombie. waxaanu Jimmy ku odhanayaa ha ii soo dhawaanina waxa aad xidhiir leedihiin fiidyowgani. waxaana uu saaxiibkii kula hadlayaa video call, laakiin saaxiibkii waxa uu ku odhanayaa waxa guriga iigu soo galay zombie. waxaana uu Jimmy daawanayaa saaxiibkii oo isdilaaya, waana uu isku dhex yaacaya isagoo daaqadda furaya, iskuna dayaya inuu dilo zombiga, laakiin isaga ayaa ay kala baxayaan daaqadda. waxaana guriga soo galaya zombiga. xagga kale Maas iyo Mark waxay isku dayayaan inay ka baxsadaan zombiga. marka ay ka baxsadaan waxaanay daawanayaan fiidyo uu Dictor ka soo muuqdo isagoo odhanaya qof kasta oo daawaday fiidyowga waxa maskaxdiisa ku dhalanaya noola yar. markaas waxaanu caddayn uga dhigayaa waxa uu ka soo saarayaa mid ka mid ah bukaanadiisa isagoo odhanaya xitaa haddii uu qofku dhinto waa uu sii korayaa isagu. waxaanay Maas Mark ku odhanaysaa waxa inoo fiican inaynu iska soo saarno, laakiin Mark waa uu ka diidayaa, waxaanay isku dayaysaa inay ka dhaadhiciso. ugu dambayn waa uu ka aqbalayaa. markuu isku daya inuu qalliinka ku sameeyo waxa soo weeraraya Carl, waxaanu dilayaa Mark. Maasna meesha waa ay ka cararaysaa, laakiin waxay kaga imaanaysaa xagga dambe waana ay dilaysaa. waxaanay dareemaysaa inay zombie noqonayso, laakiin waxa ay go'aansanaysaa inay noolahan iyadu nafsad ahaanteeda iskaga soo saarto, wayna ku guulaysanaysaa. waxaana soo weeraraya zombie, wayna ka takhalusaysaa gebi ahaantood, wayna suuxaysaa. waxayna soo kacaysaa subaxii, waxayna u soo kacaysaa dhankaas iyo magaalada, iyada oo la arkayo magaaladoo burbur noqotay, cidna aanay ka dhaqdhaqaaqayn, laakiin waxaa soo muuqanaya dad fara badan oo zombie ah. filimkuna halkaas ayaa ku soo gabagaboobaya.